gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Finish ayaa maanta dhagax dhigay suuqa xoolaha lagu iibin jiray ee Dayaxo ku yaala degmada Hilwa. suuqa Dayaxo hore loogu iibin jiray xoolaha ayaa muddooyinka si kaysa u xidhmay waana suuqa ugu weyn ee hadda xoolaha gaar ahaan lagu iibiyo ariga oo noqday suuqa ku yaala xaafadda Raadeelka ee degmada Daynila. ganacsatada suuqa Dayax ayaa ka codsatay maamulka gobolka Banaadir in dib u dhis lagu sameeyo suuqa Dayax si uu noqdo suuqa kaliya lagu iibiyo xoolaha, waxaana qorshahaas la dhacay soo dhaweeyay gudoomiye Cumar Finish. ganacsatada suuqa gudoomiye Cumar Finish duqa Muqdisho ayaa u sheegay ganacsatada suuqa Dayax in marka dib loo hagaajiyo suuqan maamulku soo xiri doono suuqyada kale ee ku yaala Muqdisho si suuqan uu helo dhaqaale badan. Cumar Finish ayaa xusay in xoolaha lagu iibiyo qaybaha kala duwan ee magaalada ay caqabad ku yihiin bilaada caasimada iyo isku socodkeeda, sidaas darteedna marka la hirgeliyo suuqa Dayax kadib waxa uu maamulkiisu mamnuuci doonaa in meel aan ahayn suuqa Dayax lagu iibiyo xoolaha. lama oga sidii uu hirgeli doono qorshaha duqa magaalada Muqdisho uu ku doonayay suuqyada ku yaala Muqdisho gaar ahaan kan Daynilo oo hadda kan weyn in la xiro oo mid kale oo ka fog lagu khasbo ganacsatada in xoolaha ay ku iibiyaan. Suuban Maxamed Jaamac Bootaan VOS News Hargeysa.